9 سنين كم شوقتم، ختم كتاب لكم ضياء 9 سنين كم شوقتم. نكتب بسرور يغشانا والحمد لرب بلغكم، ختم كتاب لكم ضياء 9 سنين كم شوقتم، ختم كتاب لكم ضياء 9 سنين كم شوقتم. اقرأ كتاب درك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى، وبآي قرآن يفيض بيانا. يا حافظ الآيات نلت شفاعة، وحباك ربك رفعة وجنانا، وكساك تاجا من سناء أنواره، وملا فؤادك راحة وأمانا. اقرأ كتاب الله لا تتوانى، ليحيل صدرك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى، وبآي قرآن يفيض بيانا. أنت الشفيع لوالديك بموقف من هوله قد شيب الولدانا. اقرأ ورتل وارتقي في جنة جعل الإله نعيمها ألوانا. اقرأ كتاب الله لا تتوانى، ليحيل صدرك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى، وبآي قرآن يفيض بيانا. رتل وأيقظ في النفوس مشاعرا نمت على أهوائها أزمانا. هذا كتاب الله هدي نبيه، النور من صفحاته يغشانا، والعلم من إعجازه بلغ الذرى، كم حير الألباب والأذهانا. كتاب الله لا تتوانى، ليحيل صدرك بالهدى بستانا، واعمر حياتك بالرشاد وبالتقى، بآي قرآن يفيض بيانا. اقرأ ورتل، اقرأ ورتل، اقرأ ورتل وارتفع، اقرأ ورتل وارتفع، كالطير حام مغردا. اقرأ ورتل وارتفع، كالطير حام مغردا. واسعد بسيرك شامخا
وكن الضياء على المدى. من يشتكي السقم الذي أعيا الفؤاد وأجهدا، من يشتكي السقم الذي أعيا الفؤاد وأجهدا. فالذكر يشفي سقمه يحيي النفوس مجددا، فالذكر يشفي سقمه يحيي النفوس مجددا. اقرأ ورتل اقرأ ورتل اقرأ ورتل اقرأ ورتل ورتل وارتفع. كم حائر وعنا ونكسن قلب ونكسن دمان أرضيدا معلمين والدينتا halkan waa iskuulka cigaal hoolkiisa galabka waxa ka dhacaysa xaflad aad u qiimo badan ay isku yimaadeen arday iyo waalidiin macallimiin marti sharaf badan galabka waxa u maleysaa meesha xataa taagan xataa iftiin darteed inuu u kiyaalay ka soo dhaxbaxayo maadaama ay fadhiyaan arday qiimo badan iyo waalidiin iyo sidoo kale macallimiin iyo marti sharaf kale xafladda ayaa ku saabsan daafurka iskuulka oo furmi doona maalinimada nagu soo aadan ee sabtida ah dabcan halkani maamulka iskuulka cigaal ayaa xafladani soo agaasimay qayb weynna ka soo qaatay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka ka dhaxeeya ardayda iyo waalidiinta iyo si lamid ah ardaydii kaalmaha galeen ee iskuulka u galeen si lamid ah kama marno ardaydii tartan aqooneedka loo qabtay ayaa halkan galabka lagu abaalmarin doonaa xafladan ayaa galabka aad iyo aad markaana waxaan u wici doonaa wariyaan idinku daalinay wax la dhageysto wax ugu qiimaha badan ee quraanka kariimka daafurka waxaana inoo soo jeedin doono ardayga ah maxamed xasan yuusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وحنا دغيسو waxa uu qiimaha badan aynu dhageysanay quraanka kariimka ayuu ahaa mar hadii quraanka kariimka halkan laga akhriyay ba sidoo kale xafladda qaybeedii ugu horeeyay aynu ku guda jirno markaana kama marna waxaan u yeeri doonaa macalinka u tababaran tarbiyanta ardaydiisa waana macalinka kaliya ee u taagan inuu baro ardaydiisa diinta islaamka una jeediyo kuna qoran soo dhaweyn waana ustaad macalin Mustaf Salaad Maxamuud saacadku waa dhankiina. waxaan ugu horeyn soo dhaweynayaa macallimiinta waalidiinta quruxda badan ardayda quruxda badan dhammaantiinba waxaan idin leeyahay soo dhawaada. waxaana ka cudur daaranaynaa ugu horeyn in xafladda waqtigeedii loogu talagalay marka hore aysan qabsoomin oo wax yar aan dib u dhacnaan waa ka cudur daaranaynaa. waxaan ka leenahay nalka raali noqdo xafladda waxaa loogu talagalay inay bilaabato 9 saac oo iyo bar galabnimo. xafladdan waxay ku saabsan tahay mahadcelin oo iskuulku ugu mahadcelinaya ardaydiisii soo dhiganaysay iyo furitaanka iyo aan ugu talagalnay in lagu maamuuso ardadii in badan dadaalayday juhdiga quruxda badan bixisay iyo waalidiintii dhammaan intaas juhdiga la soo maraysay la soo rafaadayay inaan ugu mahadcelinay ayaan ugu talagalnay. waxaana dhammaantiin idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada insha Allah biidin Ilaahi ta'ala qaybeedii kala duwanaay ayaan xafladda insha Allah ila socod doontiin. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعي هجاج آدي أدي ومسيح هاي مع المصطف وحنا رحيبة أرضيدا قروح البدن والدين تقروح البدن أنا أقدر هي ولي بها قلبك وحاط لسه داري هدا ديرا روشكا إن الله فديه قروح ذا أيام الله قدر يما لنا كلا دنا هذا مركان وحنا وعدنا با أمان وكقرن معلن أمان معلن وايه وحنا هل كان قلبك
سكال الله به وقصو جدين دونا بحار دقة خالد عبد الله حسين صعبك مدنا معلم باله مجدي إفتينكو منكري معروفكو ما أي وضعك هذاني ما شاء الله منصلك قرآنكو مداس مرك عايه موادنين تأوئذن متكي كأفلحايه مدنا معلم باله موجدها أقونتيو مراها كصوبحان مذيكتكو هينايه مفتي علماء يوم ماهر مهندساي madaxdii wax maamushay muruqooda ma maaline muwaadiniinta oo idin midkii ka aflaxi lahaayee mudnaa macalin baalaho maraakiibtii qustaay miiga duula meel sara marshadoodana kuwii haayey military ma jeestee meeleeya maalintaada aad iyo aad mudnaa macalin baalaho muwaadiniinta dhan midkii ay ka aflaxeen taas waxaa cadeen kugu filanba galabka ayaad ka dareemaysaa xafladda quruxdeeda dhinaca kale haddaan u yeero waxaana isna u wici doonaaba maamulaha mu'assasatul qur'aan qaybta shariicada waana wuxuuna ku qoran yahay wacdi iwaana waana al-ustaad al-sheekh maxamed cusmaan cabdullaahi نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد walaalyaal meel hadday bulsho isugu timaado waxay u baahan tahay in la isbaraarujiyo Allah subhanahu wa ta'ala ee koonkan la keenay inaan u mahad celino aan isxasuusino qiyaamada iyo adduunkan wixii ku dhex sugan marka rasuulkan wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waxaad arkayseen waayahan dambe waxaa soo batay waxyaabo fasaad ah ummadii ay ku fasaaday been iyo barobugaadho nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى النار marka runtu waxay kugu hanuunisaa bawleeyahay wadadii jannada aad ku gali lahayd beentana waxay kugu hanuunisaa wadadii aad ku gali lahayd naarta adigoo waxba ogeen waxba iska sheegin wax aadan arkin xaqiiqo aad u haynin ha iska sheegin bini'aadamku waxa soo martaa la yiri nicmooyin fara badan ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nimcada ilaahay ku siiyay inaad ku shukrido aadna ka sheekayso ayna ka muuqato ayaa loo baahan yahay marka nicmooyinka oo ilaahay soo umada soo mariyay waxa kamid ah نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس رسولك عليه الصلاة والسلام ساس وليه بنؤدك وحا صامرت وليه نعموين لكن dadka way ku kadsoomeenoo in badan oo dadka kamid ah ma ka faa'iideystaan waqtigii bay dayacayaan darbiyada ay fadhiyaan maalinta qiyaamo waa lagu weydiin doonaa jirkaan quruxda badan ee dhalinyaradnimada ee saan u dhisan xageed ku soo baabi'isay ma fadhi ku dirira madiin Allah maxaad ku soo qabataa lagu leeyahay qofka bini'aadinka markuu dhasho ilaa eelka laga dhigo waxbarashada way furun tahay maxay aheedo haddii ay tahay dhan diini haddii tahay dhanka maadiga marka dadka marka waxaa loo baahan yahay nicmooyinka ilaahay siiyay inay ka faa'iideystaan waqtigooda dayacin darbiyada ku dayacin
xaafadaha dhexdooda ku dayacin qiila waqaala ay iska dayaan. marka waxaa kaloo nabiga yidhi sallallahu alayhi wasallam yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayhi, qof waliba waxa uu ku dul dhinto ayaa lagu soo saaraa maalinta qiyaamo. qof waliba wuxuu ku dul dhinto ayaa lagu soo saaraa maalinta qiyaamo. haddaa adigoo turuq dul fadhiyo nafta kaa baxdo ama waxyaabo aan wanaagsaneyn oo ilaahayba raalli ka ahayn adoo dul fadhiyo, haddii naftii ay kaa baxdo maalinta qiyaamo waxaas baa lagula soo saaraya. laakiin adigoo dad u gargaarayo, adigoo kitaabka ilaahay gacanta ku hayo, adigoo sunnadii nabiga difaacaysid, haddaad ku baxdo maalinta qiyaamo saas baa lagula soo saari doonaa haddii ilaahay idmo. waxay yidhaahdeen nimankii mushrikiinta gaalada ahay markii rasuulka ilaahay nabi maxamed la soo diray ayaa wuxuu yidhi aniga rasuul baan nahay, allah i soo diray, i rumeeya, qiyaamaa jirto, jannaa jirto, naaraa jirto, i rumeeya. markaas waxay dhaheen qaarkood haddii la dhinto lisa soo bixin maayo, qaarna waxay dhaheen waa lisu soo bixinayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u jawaabay cama yatasaa'aluuna can innaba'i alcadiimi alladii hum fiihi mukhtalifuuna. waxaa la sii daba dhigay kallaa sayaclamuuna, xaqiiqada dib dambe ayaad ogaa doontaan. can innaba'i warka alcadiimi ee weyn, marka waxaa la sii daba mariyey kallaa sayaclamuuna uma kallaa sayaclamuuna. marka qofka muslimka waxaa loo baahan yahay tillaabadii uu qaadayo inuu cabiro. waddadan waddo qaldamiya, waddo saxsan miya, inuu qofka muslimka isxakameeyo. waxyahan dambe waxaa soo baxay waxyaabo anshaxa muslimiinta aad ay ugu hor imaanayo, diinteena suubanna ay diidayso. maxaa yeelay ikhtilaad fara badan, gabdho iyo wiilal isdhex galay. maxay aheeto waad aragteen baraha bulshada waad aragteen ciddii taqaano fiirisay waxyaaba aan wanaagsaneyn baan ka socdo. dadkaas waxaan leenahay waa u ducaynaynaa ilaahay ha soo hanuuniyo. marka koowaad tan kaloo labaad waxaa weeyaan waxbarashadu yaraan iyo weynin ma lahan. odayga wuxuu ku leeyahay ani carabkayga waa adkaade, maandheysku qur-aan kari maayo, tafsiir kari maayo, xadiis kari maayo, waxba ma karay, carabka ay weynaaday. waxaas adii le iska dhaadhicisay. hooyada guriga joogto ani markaan waa weynaaday ilmaheyleen waxbaraa, ilmaheyleen ku dadaala. adig ilmahaada isku naf ma tihiin, adiga ilmahaada waxaad kala tihiin ruuxdiinna waa laba qolo. ruuxdaada male adig, ayagana ruuxdooda ma lihid, waa kala camalaad tihiin. wixii adii adgashid oo maxaayad oo dambi adii adgeysatid ilmahaada loo qaban maayo. laakiin dadkeen inta badan waxay ka yimaadeen miyiga inta badan waxa weeyaan dad yar baa dugsiyo la geeyaa, qur-aankii la baraa. dadka qaarna xoolaha ay noo ilaaliyaan baa la leeyahay, gabdhahana maba ula sii jirto. waxaa la leeyahay howsha guriga noo qabo, looda iyo suufi, ariga iyo raac. waxaa laga yaabaa kuwii ay ku tukahaysay hataa inaysan aqoonin, ataxiyaadkii ka jajaban yahay, maxay aheeto salaadii ay u saxneen. meelaha lagu sax meel kasta culumaa fadhidee inay aado ayaa ku habboon. adigana gurigaada ha iska fadhininoo meelaha wax lagu barto aad. nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam man tacallama alqur'aana wacallamahu. qur-aanka wuxuu u baahan yahay horta qofkii qur-aanka dadka baro ii kan baranayaba. ninka qur-aanka dadka baraya ayaa adduunka ugu khayr badan leeyahay. kow marka kadib aniga qur-aanka Soomaali hadina waan barnaa, dadkii waan barnaa, macnihiisii ma fahansanin, waa iska wadanaa. waxaan nahay dameer malab lagu raray
dameer malab lagu rar macunaya waa iska jiidanaya ma garad marka aniga waxaan ka mid ahay mu'assasatul qur'aan qaybta culuum sharciga maxay ahayd waxaa jiro tafsiir iyo xadiis oo socdo musalsal ah oo maxay ahayd hal laga faa'iideysto dadka waaweyn iyo dadka yaryar qamiistii iyo jimcihii assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dabcan aad iyo aad ayuu maasiyahay macalin maxamed oo ku socda mu'assasatul qur'aan qaybta shareecada wuxuuna sheegay inay jiraan tafsiir iyo waliba qamiis jimca in laga faa'iideysto sidoo soo jeediyay macalinka waxaan rajeynayaa in laga faa'iideysan doono dhinaca kale haddaan eego xafladani qaybaheedii dhexe ayaanu ku guda jirnaa markaana waxaan u wici doonaa waa liibaan cusmaan maxamed ahna arday halkan wuxuu ku jeedin doonaa galabka geeraar ku saabsan iskuulka cigaal أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلام من دمال مرتي شرفت هالكان فريدة أي كمدين والدينتين أي معلمينتي هالكين سو قارسين دمانتين وعدكم سلامة سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد وحا هالكان كسو جيدي دونا غيرار كسابسن اسكول ويان عيقال تعليم تأوغارو علومتا كوربحية أو اسكول لدقيقة كالي وقالي كالمها سري اسكول ويان عقال إلا قال إيو إسلام مقدش إيو هريرا حمر إلا أدوين إيو كالوريق دفتي دقموين كبنادر جدق ودقوبها التعلين قول وين كسوهو إيو اسكول لدقيقة كالي وقالي كالمها سري قرادو معموليو قدون سر معلمين رقي نوسو قرمدي وحي قارين دنتو دبتي ددال بينو قلن إلا قلب إيو هبين قرقار بينو ودين قعنتين هايين اللو قرب كود النقو أردقاسي حفلتين قيبيدي كلا عدان قصي سعودة وحان مركان ويير دونابا معلمين تكمدا احنا معلم مركزكا كسعودة وانا أستاذ محمد علي halkan ayuu kelmadna u jeedin doonaa soo dhaweynta wadankiina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أرضى والدين iyo macallimiinta iyo maamulka madrasadan cigaal way salaamayeen waxaan rabaa inaan dhiirigelin iyo baraarujin yar aan siiyo ardada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu adoomadiisa u abuuray oo jinn iyo insuba u abuuray sida Allah uu sheegay waa inay Allah caabudaan Allah subhanahu wa ta'ala qofku si uu caabudana wuxuu u baahan yahay inuu wax barto oo cibaado waxa ay tahay uu barto sida Allah loo caabudana uu barto waxbarashada waxa ugu horeeya waa cilmu shariica quraanka qofku inuu barto sharcigiisa uu barto maadigiina uu barto Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu hadana siiyay madaaris iyo iskoolo maadigii iyo diinkiiba isku dhigaya marka haddii aad nasiib u yeelateen inaad ka mid noqotiin dadka wax baranaya oo ogtihiin in aysan helin dhalinyaro fara badan oo adinka idin la mid waxbarashada oo adinka kabaha idin casaynayaan ay wadooyinka fadhiyaan qaarkood darbiyada ay jiifaan wax daryeelaya aysan lahayn waxaad ku tala gashiin oo ogaatiin in adinku kurtihiin kuwa nasiibka leh waxbarashada marka midii aad soo marteen waa inaad xafidatiin mid ay idin dhimanna waa inaad ku tala gashiin inaad meel sare ka gaartiin inta hadalka aad ka dhamaysanaysiin waa u kaadinaynaa marka hadalka dhamaysta haddii la hadlayo waxa fiican waxa lala hadlayo wax loo sheegaya waa dadka meesha fadhiya in la dhageysto waxa laga yaabaa inaad wax ka faa'iido marka insha Allah aan daqiiqadaha yar aan hadlayno aan is dhageysano magaalada haddii aad martiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay siiru fil ard dhulka socda dhul kale intaadan gaarin magaalada markaad marto waad aragtay dad adinka idin la eeg oo idin la mid ah oo Soomaaliye
ayaa derbiyada jiifa oon dar yeelayn oo aan wax xanaana haysan adinku waxaad nasiib u yeelateen in waalidkiin ay waxbarasho idiin soo diraan waxna aad baratiin marka waxbarashadaas inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celisiin aadna dadaalkeedii la timaadiin arday kasta wuxuu jecel yahay markuu imtixaan galo in kaalinta koowaad aad keenta la yiraah oo darbiga lagu soo dhajiyo kaalinta labaad kaalinta saddexaad kaalimaha hore arday kasta waa jecel yahay laakiin waxa ka horeeya dadaal iyo qofku inuu go'aan la yimaad inuu wax iska aqriyo waxa ugu yar waxay tahay haddii kelimad lagu qoro lagu yiraah meeshan soo istaag waxay ka rabtaa diyaarin fara badan waliga ha isdhihin adaa soo qorto isku soo aadiyay marka halkaan joogto oo kala joogto waxay ku tahay farxad markii sidii la rabaa u keento imtixaanku waa la mid waxba soo diyaarisay qoraal lagu yiri waxa laga yaabaa markii buugga lagu keeno wax sahlan inay kugu soo dhici waayaan marka warqadda laga qaado ka bacdi ay kugu soo dhacdo oo aan wax lagu soo celinayaan la arag wax kasta waa sidaas naftu haday ka dhacdo ma lagu soo celinayo gaaladu waxay dhihi doonaan rabbi irji'uun rabbi yawna cali la'alli a'malu saalihan si aan amal wanaagsan u soo samaysto laakiin ma la soo celinayo qofku wax markay dhaafaan ka bacdi ayuu soo xusuustaa marka waxbarashada si aad heer sare uga gaartiin adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idin abuurtay garta waalidkiin baari u noqda ilaahay xaqiisa ilaaliya macallimiintiina ixtiraama dariska ixtiraama dadka martida u idin yimaad ixtiraama waxbarashadana insha Allah heer sare ka gaari doontiin waxaan rajaynaynaa waxbarashada markaad ku dadaashiin sanadka markaad ka gudbaysiin fasalada oo imtixaamada la soo dhajinayo in la yiraahdo iskoolka cigaal wuxuu galay kaalinta koowaad iskoolada u galay ardadiisuna kaalimaha koowaad ay haystaan waxaad ku gaari kartiin waa go'aan iyo inaad marka hore adinku toosanaatiin ardada say u badan yihiin iskoolada fiican haystaahi markay dugsiga ka soo baxeen iyo waxba kuma kala duwana laakiin qaarkood aysan macallimiintooduna la xisaabtamin ayaguna isu haysta inay diinkii iyo wixii lagu tarbiyeynayay iska daayeen waad aragteen dhinacyada iska xiirteen waxay rabaan ay madaxooda ku sameeyeen gaaladay ku daysadeen dadkaas oo kale ha noqonina waxa isku daydeen qamiiskiina cimaamadiina koofidiina dhaqankiina inaad ilaashatiin masaajidka safka hore ka fariisatiin iskuulka markaad u socotiin aad salaada duhur aadna dayicin dad baana markay iskoolada u sii socdaan iskoolka casarka in ku tukan la yiraahdo laba jooga maahan aan salaada tukan oo iskoolka hore isaga gala marka waxyaalaha iska ilaaliya si aad u sara martiin ilaahay wuxuu idin abuurtay ilaaliya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد aad u mahadsanyahay ustaad maxamed markaana xafladeena wili qaybay dhaxayna ku guda jirnaa markaana waxaan u yeeri doonaaba ardayda kamid ah oo asna halkan ka soo jeedin doonaba guusha qofka waana Khalid Abdullahi Maxamed sacabka wadankiina anigoo magacay Khalid Abdullahi Maxamed halkan waxaan soo jeedin doonaa guusha qofka guusha ninkii goobo ka gungaaraaye guri jiif iyo lagu meelo gashiin la oonaaye guri weyn iyo lagu meelo gogol raaxadeed gani iyo lagu ma gaaro goosnin leeyahay gaf naftaada ka gashiyo lagu meelo anaan joogtaaye goofaltan iyo maahan haajo gaaraaye gaaltooyo lagu meelo gaanka aad tahay gaari lagu ma gaariyo faras foolaada guyal baa loo safraa luul aad goobi garwaaqsashada qaladkaad gashaa waa libin weyne waa gul cajaa'ib hadafkaaga oo aad garataa guulihii kuu gaarsiyaa loogu mahadiyaaye xaajo iyo xaaji isgunuday oo gar u faalootay iyo go'aan aad weligaada gaari weyday waa loo talo balaarsadaaye markaad gunta heshaa faas lagu gooyaaye geedkii harweyba goonidiisa loo ilaashadaaye waa gul cajaa'ib haddaad garato hadafka yoolkaaga markaana waxaan u yeeri doonaaba maamulaha guud ee mu'assasada quraanka ee qaybta quraanka kariimka waana al-ustaad macallin nuur sacabka wadankiina wuxuuna ku qorayaa kelmad bismillaah الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد مرت شرفك علماء والدينتا أرديدا ضمان وإذن سلامي أنت كسوق بشيء حفلتان أو قروح البدن
markii koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh markii labaad waa macallimiinta oo cigaal madrasada cigaal oo kasoo shaqeeyeen intaas juhda kasoo bixiyeen oo galabta xaflad mahad celin aan oo qabteen mahad iska leh mahad kale waxa iska leh waalidiinta oo la soo shaqeeyeen xafladda macallimiinta kalagooda ma qaban karaan waa in la shaqeeyaa macallimiinta marka waalidiintaas aydan waa mahadsanyihiin inta kasoo qayb gashin kulli waa mahadsantiin marka hala dadaalo insha Allah tacaala waxbarashada lagu dadaalo iskuulka cigaal waxa la baxay waxbarasho oo tayo aqoon leh insha Allah tacaala qof alla qofkii oo ardaha insha Allah tacaala ku soo xiro marka kelimada waqtigan waa yiri insha Allah tacaala intaas ku soo gabagabeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuu maasiyahay ustaad macalin nuur xafladeeni qaybaheedii dhexe ayaynu weli ku guda jirnaa weliba waxa inoo soo socota sheekooyin xiiso leh iyagoo weliba aan kala dhicinba laakiin inta sheekooyinka aadinba ka hor waxaan aadi doonaaba markaan aan u yeeri doonaaba haddii mar macalin loo yeelay ardayna loo yeeray markaan waxaan jeclahay inaan waalid u yeero waana waalid hooyo ah hooyo ilaanta adduunyada hawaashi markaana waxaan u yeeri doonaaba Faa'iisa Daahir Cabdiraxmaan oo kelmad ku qoran waana hooyo Faa'iisa sacabka waa dhankiina haddii ayna maqlayso waxay mahad u sugnaatay Allah subxaanahu wa ta'ala waxa halkan ugu mahad celinayaa macallimiinta iskuulka cigaal iskuulkaas oo ka helnay waxbarasho tayo leh intii ciyaalkeena dhiganayeen waa hal sano halkaas sano oo ka helnay waxbarasho aad iyo aad u fiican intii ogweyba og yihiin intaan ogeyn waxaan dhihi lahaa imaada iskuulka cigaal intaasaan uga baxay hooyo Faa'iisa hooyooyinka hadalka iskuma fiicnee maxay isku fiicin wali yaqaanamo barbaarinta ubadka aad iyo maasanta hooyadaasi markaan waxaan u yeeri doonaaba waalid waa markaan asna waa waalid aabe waana حسن يوسف هدي ونمق الله كلمة أيوك قرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان إلهي مهدس وي الله ومهد إلينا كلن كين أو ميشان كلن أو مانت إلهي نور كلمي أو ميشان كسونا الله مهدس كلا كسكو dadkii oo isku keenay oo dadkan oo maasha Allah oo qaban qaabi xafladan dhamaan macallimiinta iyo waalidiinta dhamaantood mahad iska leh oo soo qayb galeen oo kaalintooda ajiibeen aad iyo aad ugu mahadsantiin dhamaanteen mid kale hore oo sii gudugala waxa weeye maasha Allah madrasadan oo cigaal oo maasha Allah waxbarashadeeda tayadeeda oo kaalinteeda aad iyo aad oo cajab gelinay oo maasha Allah ardaydeena dhamaan oo noo dhiganayaan oo xaafadana ugu dambeeyay oo meel dheerna ugu imaanay waxa ugu soo dooranay meel dheer ugu imaanay waxa weeye waxbarashadeeda oo tayo leh oo aad u wanaagsan macallimiinta joogaan ilmaha waxa fahansiiska iyo aqoontooda maasha Allah aad iyo aad ugu saacidaan markaan waxa weeye xaafadda ugu dambeeyay oo tawakal oo odweena gadaashaas damba ilmaha ardaydeena dhamaan ka soo tagaan ilaa arday badan kale ka soo tagaan markaan insha Allah ani waxa kamid ah waalidiinta oo ardaydooda inta dhigata aad iyo aad ugu taageersanahay insha Allah ina hore kaalintooda iyo waxbarashadooda dadaalkooda macallimiintana oo aad iyo aad u sii wadaan aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum aad iyo aad ayuu mahadsan yahay aabahaasi markaana waxaan u yeeri doonaaba waa ustaad Cabdi Haadi Cabdullaahi kana socda macallimiinta koolgasha iskuulka facaweyn ee Imaam Shaafici kelmad ayuu asna halkan ka leeyahay sacabka waa dhankiina waaba macallin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله قب وحبر الشيء إنه إلهي نسكوك كان قلبته الجمعة أنت اسكدب waxaan rabaa inaan xoogaa ku dara wixii ay sheegeen macallimiintii iyo waalidiintii iyo ardaydii halkan ka hadashay waxaan rabaa inaan aad u bogaadiyo arday Khalid oo gabi aad u qurux badan oo qofkii yani aad u qaata horumar uu ku gaari doono insha Allah marka waxaan rabaa muxaadaro yar macallin waxa way mikrofoonka waa laga qaataa looma dhiibo haddii loo dhiibana iskama dhiga markii mikrofoonka loo baado
in laga qaato xogaana daqiiqada ee leysiyo muxaadaradaas waxay ku saabnaan doontaa waxbarashada laakiin heerarkeeda ayaan kala qaadi doonaa oo dheer heer ayaan ka kala dhigi doonaa insha Allah marka ugu horeyso ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun isla aayad kale wuxuu ku leeyahay yarfa'i Allahu alladhina aamanu minkum walladhina utul ilma darajat ilaahay wuxuu leeyahay aayadda koowaad ma siman yihiin qof wax bartay iyo qof aan wax basin oo aan baranin jawaabtu way caddahay oo ma sinno adduunkan ku aragnay quraanka noo sheegay haddana anaga si amali oo tadbiiqi aan magaalada ugu aragnay ma sinno way kala fog yihiin ilaahay uu nusii caday wuxuu yiri darajaad ayuu dheeriyaa qofka cilmiga leh qofka aan cilmiga lahayn intaas waxaan rabaa markii inuu qofka baraarugsanaado sidoo kale wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam utlub ilma min almahdi ila al-lahdi oo ah cilmiga baro inta aad ku jirto marada hooyada ay kugu saarsan tahay ilaa laga geeyo lahdiga oo aylka yani qabriga meel kamid oo qofka la sii geliyo intaas maxay ahayd macnaheeda macnaha mar walba oo aad karto wax baro way macnaheeda waa balaaqa ku jirto macnaheeda in ilmo la saarsiiyay wax baranayaan oo ay wax barasho aadayaan wax way baranayaan laakiin ma aadayaan maxaa waay ilmaha yariiska ee guriga jooga wax way bartaan kuwa labada bilood jirta wax barto kuwa saddexda bilood jira wax barto tusaale yar maamooyinku way nala joogaan khayr ilaasiyo ilmaha yariiska oo guriga ku jooga qofna way yaqaaniin way ka aamusayaan markuu qabto qofna way diidayaan haddana laba bilood oo jira iyo hal bilood jira waay wuu bartay saas darteed culimada tarbiyada waxay dhahaan ilmaha yar yar ee maanta la dhalay yaan hortooda lagu murmino lagu booqin maxay way fahmayeen ay leeyihiin hortooda yaan lagu booqin wallahi way fahmayaan xaqiiqatan way fahmayaan tusaale yar kale ilmo yariis oo ku joogo 2 sano iyo wax ka yar haddii hooyada ay xijaabneedo xijaab qaadato mar walba albaabka la soo gara xijaab qaadato albaabka markay furaan sugay dhahan hooyo xijaab qaaday dhahan ilmaha yariiska 1 sano 2 sano jiro waa haddii hooyada ay xijaab qaadanaynin ma dhaayina soo galay leeyihiin marka intaas waxaan rabaa inaan ku ogaano qof walba inuu wax baranayo laakiin heer oo waxbarasho loo diri karo oo waxbarasho ka baxsan midda guriga iyo midda caadiga guriga intaas kadib waxaan rabaa inaan hormariyo ardayda oo ah mixwarka waxbarashada ogaada ardayay inaanan waxba baranaynin ilaa inaad adiga go'aansato mooyee haddii macallin fiican lagu geeyo manhaj tayo leh lagu dhiibo hooyo iyo aabba fiican ku soo diraano adi aadan go'aansan inaad wax barato wallahi baramaysid haddii hooyada ay ku tiraado bax buuga soo qaba akhri kitaabka quraanka soo qaada akhri ee adiga aadan go'aansan inaad kitaab quraan soo qaadato akhristo wallahi ma baranaysid maxaa yeelay hamin umma leh wuxuu leeyahay hooyo waa bax adeega doonay dhiisi may baxdo oo kitaabka intaas ka saari lahaay hami oo qalbigiisa kuma jirno barto marka waa inaad adiga go'aansato inaad wax barato haddii kale iska dhaaf waqtigaas kaga dhuminina dad arday qaar waxaan dhahaa iyo waxbarasho mirtid miya oo aan asxaab iyo qaraabi dad aan ay dhaleen waxaan adiga niyo hadaadan rabin waxbarasho diid hooyada iyo abaan u sheeg ma rabide haddii kalena wax baro ama laakiin khayladooda ilaa ku aadin waxaan rabaa inaad intaas ogaataan waa inaad adiga ka soo goodo waxbarashada ee ma inay waalidkaaga kugu qasbaan waa intaas mid ardayda aan dheelahay waalidiinay ma jiro iskuul ka fiican macallin ka fiican waxaad ogaataan jaamacadaha qaar isku macallin ah dhiga jaamacadaha qaar ee gobolka banaadir ku yaala isku macallin ah dhiga jaamacad waxaa lagu dhigtaa taqriiban semesterkii 6 bilood $800 qiyaastii jaamacadna waxaa lagu dhigtaa $200 isku macallinana labadaas jaamacad dhiga ardaydii qaar midda 800 wad ordayaan qaarna waxa waaye tabartooda iska hooseysay midda 200 laakiin ogaado isku macallin waay maxaa kala fadili doona marka waxa kala fadili doona ardayga bas asiga mar walba ardaygi waay marka insha Allah inaad waalidiin adikana aad ardaydiina soo diyaarisaan oo aadan la qasbin laga dhaadhiciyo la fahansiiyo la fadhiisto ardayga lagu qanciyo inuu wax barto ardayga intuu saalooyin loo soo qaato liiraado wiilka adeer jaamac wiilka adeer yuusuf gabadha ee Caaisho dhamaantood fiir ee wax barteen kuwa waxba baran lama magacaabo waa xagga tarbiyaga kuma fiicna qofka hadii aniga hadda aan Khalid waan amaanay arday fiican waayaan dhahay arday kale oo liitada inta ku arkay magaciisa inaan sheego sax maaha ceeb marka waxyaabaha qofka xun lama sheego laakiin ardayga waxa la tusaa kuwa fiican wiilkaas hebel wiilkaas adeer hebel oo fiican iyo gabadhaas deblaaye iyo gabadhaas adeer hebel iyo abti hebel oo fiican la tusaa kuwa xun adiga tusan iska dhaaf han u sheeginba marka taas waa midaas waalidiinta inay ardayda soo diyaariyaano guriga kala soo shaqeeyaano
habeenkii wax soo baraano habeenkii u sameeyaan goob waxbarasho habeenkii ay ardayga ku qanciyaan inuu asiga kitaabkii soo qaato ugu yaraan waxyaabo waxaa jira tasjiicaad haddii aad macalinka hal bil ila soo hadlin waxbarashadaada fiicnaato natiijada 10 ugu sarreeya gasho wax baan ku siinaa wax loo ballan qaado ugu yaraan haddii uu 10 ugu horeeyo gelin ee 12 uu gala ma sha Allah waa soo dhawaatay waana inta labadan waa naqaana labadan aad meesha ka baxday habeenkii ma xasuustaan habar yar soo salaamayni habeenkaas akhrintii ka baaqatay waay ardayga markuu dhiiranaana uu soo diyaarina midda kale oo saddexaad oo u dambaysa waxa waaye maamulka iyo macallimiinta iskuulka cigaal waxaan rabaa maamul iyo macallimiin inaad maqashaan warkaan maamul iyo macallimiin waxaan hadda ka soo sheekaynay jaamacadaha qaar ee gobolka Banaadir inay dhigaan macallimiin isku hal ah haddana macallimiinta qaar meesha ay joogaan lacag fara badan lagu qaada kuwa qaarna meesha ay joogeen oo kalena lacag yar lagu qaada waana isku macallinka jaamacadihiina in oo ardayga uu leeyahay jaamacad hebel aan rabaa jaamacad hebel nama rabi iyadoo oo dhammaantood hal macallin uu dhigayo taasi waxa waaye tayada maamulka ee qusaysa de maamulka uu noqdo maamul adag waxbarashada ku adag ballanta ku adag ahdaaftii loo aasaasay goobta waxbarashada fulinteeda ku adag waxaan is leeyahay waxay noqon doonaa iskuulkaas ama mu'assasadaas waxbarasho tan loogu jaceylka badan yahay uguna tayada badan uguna wax soo saarka badan tusaale haddii ardayda ka mid ah oo diido shuruucdii iskuulka inuu hoggaansamo xoogaa yarna lacag laga helayo haddii lacagta la fiiriyo aan la fiirin shuruucda uu ku ciyaaraya iskoolkaas wuu burburay bas waay khalaas wuu burburay wuu xirmaa tusaale haddii aan soo qaadana ardayda ka mid ah ayaa wuxuu diiday inuu fooda iska xiiro iyadoo ay mamnuuc ka ahayd iskoolka in food la xirto ardayda ka mid ah ayuu diiday macallimiinta inuu ixtiraamo oo warkooda dhageysto oo hadal fiican kula hadla ardaygaas haddii aad sii haysataan mu'assasada waad iska xiraysaan goobta waxbarashadana waad xiraysaan ardaygaas waa in uu iskuulka waalidkiisa loo yeero maalinta koowaad horta la qoraayo shuruucda loo sheego waalidka macnaha dad badan oo reer galbeedka ka imaada waxay annaga Soomaalidana dhahan adika wixiina sharci ma aha xoog waaye xoogna ma shaqeeyo sidaas sax waaye sharciga shaqeeyo xoog ma shaqeeyo quraankana aayado quraan waxa ku soo arooray ilaahay ma cadaabo qoom oo uunan u sheegin diinta ilaahay qoom oo aan loo sheegin waxa lagu cadaabayo lama cadaabo dadka ay gaalada ee diinta islaamka haba yaraatay gaarin culimada ma dhahana maanta waa naaray galayaan ma dhahana gaala wayna diinta gaarin haday jirto maanta ma jirtee marka maalinta koowaad ee ardayga la qoraayo waa horta inuu waalidkiisa yimaado uu qoro gaar ahaan waa inuu qof rag qoro waa ogaa waalidiinta dumar ay badan yihiin Soomaaliya oo dhan ay dumar badan yihiin laakiin gabadha oo maamada ee ardayga dhashay waxa la dhashay wiil waxa adeerkeeda wiil waxa abtigeeda wiil haddii yani ay zawjkeedii kala tageen ama ay ilmaha agooman yihiin waxay leedahay dhan adeer iyo dhan abtay leeyihiin ilmaha adeeryaashooda jooga in la keeno sharciga loo akhriyo maamada oo ardayga dhashay iyo qofka kale ee waalidka ah ama waalidka ka wataba iyo ardayga inay wada dhageystaan shuruucdan ayaa cigaal lagu joogi karaa cidda aanan ka soo bixi karin haddaba banaanka iska joogtaa shuruucdaas marka waa in sideeda loo tadbiiqiyo loogana naxariisanin arday qaladka markuu dhaca marka waalidku waa loo yaraa waxa la ardaygaagi qaladkan ayuu sameeyay shuruucdii ku xad gudbay ardaygaana waa inaan naga wado waalidiinta qaar waxay dhigi doonaan waayaa waa wadana kuwa qaar waxay dhigi doonaan maya hal jaanis halisiiyo dibdaba mu dhici doono waxaan aaminsanahay haddii arrintaasi ay dhacdo in uu iskuulka noqon doono iskuulka ugu fiican dabcan wuu yahay hadda waalidiintii hadleena way noo sheegeen anin arday badan ay dhigato waalid aan u ahay oon adeer iyo abti wax walba aan u ahay ay dhigtaan dhammaantoodna waa in imtixaama waanan arkay inay fiican yihiin maasha Allah sidaas inay kusii socdaan waxaan rabnaa marka inay natiijooyin iyo kaalimo fiican galaan haddii marka macallimiinta iyo maamulka taladaan u jeediyey iyo mid waalidiintaan u jeediyey iyo mid ardaydaan u jeediyey aan waxba laga fulinin ama mid ka mid ah uusan fulinin waxba natiijadii aad rabteen ma heli doontaan haddii aan wada fulinana natiijadii aan rabneen heli doonaa imtixaanaad dad waxay yimaadeen qaran ee dadka lagu imtixaamo lagu kala saaro imtixaanaadkaas qaran heerar ay leeyihiin waxaa la dhahaa ardayda ugu sarreyso iskuulkaas u gashay maxay yihiin kow waa lagu imtixaamo maya iskuulkaas ardaydooda dhammaan maxay wataan iskuulla qaara waxaa jiraan arday ay instaadka ay soo saartaan Facebook ay waayeen dhammaan ardaydu maxay keeneen C+, C- iyo D way hooseeyaan macnaha 50 iyo dhowr wata ardaygooda dhan 55 60 70 ay wataan iskuullada qaar ardayda u gashan waad aragteenoo ilaa boqolaal ay maalin walba soo saaraan daqiiqad maxay wataan
siddeetan iyo wixii ka koreeya a minus b plus b play b plus ay wada wataan waxaan rabnaa marka inaad ardaydaas maxay ku gaareen way tartameen wax bay akhriyeen way dadaaleen inaan dadaalna ayaan ku talinayaa ogaada waxbarashada waa shay muhiim ah oo qaali ah koonkaanne waxyaabaha noola keenay waa cibaadada ilaahay cid aanan waxba baranin ilaahay cibaado dhabi ma caabudi doonto cibaadada waxay ku xidhantaa aqoon ilaahayna waxaa lagu yacni caabudaa yani calaa cilmin wa yaqiinin ayaa ilaahay lagu caabudaa oo looga cibaadaystaa waxaan rabaa qodob muhiim ahay oo ay ahayd inaan ka bilaabo ee aan ka bilaabin farxadda iyo ardayda wejigooda quruxda badan darteed waxaan rabaa arday aan qur-aanka baranin ee aan xifdinin haddii uu idinku jiro jaanis uu haystaa maanta xifdiyo haddii kale waxba ma baro doono kaalimaha ugu sarreeyana ma geli doono wallaahi xaqiiqatan kaalin ma gelaya arday aan qur-aanka aqoonin arday masaajidka aan kitaabo ka akhrisanin arday aan masaajidka kitaabo aan ka marin maqribka ama cishaa wallaahi kaalin geli maa taas iga qoran car ha la keeno waa yacni waxa ijaaz car ha la keeno arday wasaaradda waxbarashada gobolka banaadirka ama yani heer federaal ee form 4 ama heer gobol gobolka banaadir sideedaad ee galay ee aan qur-aankana aqoonin dabcan waa laga yaabaa inuu si boqolkiiba boqol u xifdsaneen laakiin qur-aanka waxaa laga yaabaa inuu shibdu xifdiya qur-aankana aanan aqoonin kitaabana aan waxba ka akhrisanin haba yaraatay aan ka akhrisanin ee kaalin galay tobanka ugu sarreeya galay haddaad keentaan waxaan sheegayo dhan waa iska tuuraysaan insha allah marka ogaada meesha ay wax naga jiraan waa inaan masaajidada iyo kitaabada qur-aanka iyo kutubta diiniga aan wax kow xoogga saarno taas waxaan rabaa waalidiinta inay aad xoog u saaraano ardayga maanta inta fadhiya afaraadka ama shanaadka ama lixaadka ama toddobaadka jaanis aad haysataa sideedaadka aad iska soo muujiso sanad kadib 2 sano kadib magacaaga meeshaas looga shaaciyo derbiyada lagugu soo qoro laakiin waa inaad hadda intii goori goor tahay masaajidada aadid waxa waaye qaybta oo maadiga ee ardayga ugu xirnaa karta inuu kaalin galo waa English waa ardayda inta badan xisaabta way yaqaaniin sayniska way yaqaanaan cilmiga bulshada way yaqaanaan ardayga waxa rido waa 3 maado waxa rido carabiga tarbiyada ingiliishka carabiga tarbiyada ingiliishka ardayda hoos u rido ardayga dhammaan maadooyinkiisa ee balaasoo kaastay ingiliish wuxuu keenay 60 kaalin ma galay inta dhan wuxuu kaastay ee balaasoo kaastay عربي وهوستي كال مجالها سد حداث مادة وقدرن وأردد قبل كبنادر هوس وردي أردد قبل الله حوجا ويكفي عين عربي التربية ده إنجليش كأيجر هوسجي أما قبل كبنادر إنجليش نماية عربي نماية تربية نماية وإن سد حداث مادة حوجا الله صار والدين تاي أردد حوجا وصارانه بس يدد قدرانه لعجة إنه كبحن محل عجوا بحنه محا مسايد قدر بس الشهر مغرب كنت أقول حيث صاخرية صلاة الصبح حتى كتاب كهذا جيسته مهمة إنه حفظي حتى هذا جيسته معلم مامل كانوا وحقيقة أنا كل تلنا يا معلمين تيوق هذا أنا يصدق على اسمه دين إسكا كوترالان معلمين شهادة ضوطة أو تقصوا له هابك الله دقيقة يقانو وحواي تربية وحواي ديني وهاي صح ما إن أوقف أو أردد كده بجدية هذا أرد الدين تيكود بجسته وصابعة تصوم مد إسلام لماذا يو مسؤولية ده أما إنجليش كيو عربية يو سومالي وحيرما معناها بروفيشنال شغل قف يقان هربان سومالي الحمد لله أردي أسكاك جعسنا يا معلك والله عريرين يا أما إنجليش كي عربي هاب لود يجيلين هاب كودا دان لود يجين أردي وإحنا مكينة دورانا وحيابا ما أنت أردي كودا عنين وقول لي تي كجران مركي إن شاء الله أنا أرنت أسين حوق سارتان وأنا أمي سنة مركي أنا أردي أتصو سارتين أنا الحوق سارتين وأدودين كاسك باللاودين marka insha Allah hadalka waa idin ku dheereeyay waxaan ku talinaynaa waxbarasho oo ay ugu horeyso quraanka kariimka iyo shariicada islaamka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ومسيح أستاذ عبد الهادي أو خطبة قيمة بدل كأنه جدي مركنا قيبيه ده يعني كوجد جنا أنا وكسي سقينا قيبيه وجودن بحفل دينا مركان وحن آدي دونابا شيكو ما شيكيس أيالي ليه بقلبك دبضانو أنت فريو أيابا نهايبا haddii aan ku tuuro sheeko waxaa jirta gabar iyo wiil oo aad isku jeclaay waliba waxay isku jeclaadeen si caadi ah kadib si caadi ah ayaa loo gurigeeyay waalidiinta ayaa isku meheriyay si caadi ah kadib si caadi ah ay isku guursadeen kadib si caadi ah ay cunug iskaga dhaleen kadib si caadi ah ayaa cunug markay iskaga dhaleen cunug markuu weynaaday ayaa iskuulka cigaal la keenay kadib si caadi ah ayuu galabka xafladda halkan fadhiyaa soo madaxweyn taas hadii aan ku gudbo
markan waxaan u wici doonaaba aan u yeeri doonaa Yunis Maxamed Yuusuf oo asna halkan ogeysiis yar oo iskuulka ku saabsan kala tuuri doonaba sacabka waa dhankiina. أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وايدين سلامي مرت شرفت هالكان نوصو كلنتي أي كمديين والدينتينا معلمينتينا وحايدين كسلامي سلامة إسلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحا هالكان كسو جيد دونا أوغيسيس كاسو كسابسن سكول كعقال برمران سنكدري سكول أوغيسيس دكسي عقال برمران سكندري سكول goob ku habboon waxbarista ubadka Soomaaliyeed kana aflaxeen kumanaan arday oo Soomaaliyeed ah ayaa haddana mar kale iskuulka Cigaal waxa uu qaadanayaa sanad dugsiyeedkan 2023 ilaa 2024 arday cusub ardayda la qaadanayo waxay iskugu jiraan heerar kala duwan sida dugsiga hoose dhexe iyo sare fiiro gaar ah iskuulka waxaa lagugu diyaariyay qalab waxbarasho oo tayeysan iyo macallimiin khibrad badan u leh waxbarista ubadka Soomaaliyeed muddo badan ku soo jiray sidoo kale manhajka iskuulka waa manhajka wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka waxbarashada ee dawladda federaalka iskuulka waxa uu ku baxaa luqadda Ingiriiska iyo sidoo kale kama maarmo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed iyadoo ardayga loo sheegayo waxa ay diinteena islaamka ina fartay haddaba horay u gaar iskuulka Cigaal Primary Secondary School. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddaba hore u gaar iskuulka Cigaal taas waxaa cadeen kugu filan inuu yahay goob ku habboon waxbarista ubadka Soomaaliyeed. waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay ayaan ku sii dhawahay xafladeeni markaan waxaan u yeeri doonaa asna Khaliif Maxamed Khaliif oo asna ku qoran mowduuc waxbarashada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني السلام أولا وعماسك لألي ماشي هو ذي كل مية مركي لهذا عماسك لوالدينتين تربية في عنسية مركز دعد عماسك لمعلمين تجودي في عني وبعية هل ما تعلقا واكسو جدنا يا أقون توعى فهم كبرشدة شيئا ما أشياء بضن وعن الله برتا سئاد وحوغاتو أرن جرت أما عصب سلو دراسية والحا أقون توعى إفتين كأذنها وأنا هلك أي سومالي كتير هذي أقول لأني وافتين لان أقول توعى أي سلك كويدا إن أي واحد عصب أدونك لو سكر ديو أما برشدا وحوري وجرتي أما عصبونيستي أرين هوري وجري أقول واح لو قيحا waxaad bartay waxaad baratay aad leedahay ama baratay aqoon ama isha kaliya ee aad wax ku aragto waana ilayska meelaha mugdiga ah ku bidaamisha si aad wax u aragto ma kugu hagaagi doontaa waxbarashada waa furaha nolosha aqoon la'aan waa iftiin la'aan. ayuu mahadsan yahay Khaliif oo halkan ka soo jeedinayaba mowduuc ku saabsan waxbarashada ababaay markana haddaan aadooba waxaan u yeeri doonaaba maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee sare ee Cigaal yaa way mataqaaniin waa al-ustaad maamule Cabdullaahi Cusmaan Aadan sacabka waa dhankiisa kelmad ayuuna halkan ka leeyahay galabka. bismillaah ma sha Allah farxadan la soo koro waxaan ka hadal ma jirto farxad aad u faraxsanahay ardaydan saan u qiim badan iyo waalidiintan maanta halkan lagu amuusayo iskuulka Cigaal ma sha Allah aad baad u mahadsantiin waalidiinta iyo juhdi daalan soo bixiyeen oo soo karab istaageen ardaydin
oo juhdi dadaalka bixiseen haddana nahay heer cigaal insha allahu tacaala kolley waxaana xali doontaan insha allahu tacaala waxbarasho tayeysan oo arday nidaamsan xag akhlaaq iyo xag tarbiyada islaam diin oo ku dhisan insha allahu tacaala intaasna waxay faahfaahin dheeraad ah waxaa dhammaystiri doona insha allahu tacaala maamulka sare ustaad cabdirasaaq maamulaha guud ee iskuulka cigaal hoose dhexe sare waana al-ustaad cabdirasaaq axmed shaqlow waana ninka ka dambeeyey guushaani quruxda badan galabka aad arkaysaanba ustaad shaqlow inuu soo gaarayaa rajeynaya bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa cashrati alanbiyaa والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام دمان والدينتا مرت شرفتا أرضيدا دمان وحن ليهي وحن كل سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام حفلدان وحن وهد لدونا إلا دور qodobka ugu muhiimsan ee xafladan loo soo qabaqaabiyay waxaa ka mid ah mahadcelin loogu mahadcelinayo ardayda kaalmaha koowaad u kala gashay fasalada iyo sidoo kaleeta mahadcelin loogu mahadcelinayo oo ugu weyn ardayda ku guuleysatay tartan aqooneedka ee la soo qabanaya sanadkan sanad dugsiyeedka ardaydaas ayaa maanta lagu abaalmari doonaa sidoo kaleetana waxaa xafladan daafur u tahay sanad dugsiyeedka 2022 intaas kadib mahadcelinta kadib ardayda waxaan ugu mahadcelinaa horta dhammaan ardaydii kaalmaha koowaad galaasmanka wada gashay waad ku mahadsantihiin aqoontiina iyo waxbarashadiina ee aad ugu soo muuqateen ardayda kumanaanka arday ee fasalada la joogtaan sidoo kaleeta waxaan ugu mahadcelinaa ardayda kaalmaha u soo gashay tartan aqooneedka kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad waad ku mahadsantihiin dadaalka bixiseen iyo juhdiga aad ku fara badan ee aad u soo jeedeen habeen iyo maalin waad ku mahadsantihiin insha allahu sidoo kaleeta waxaan ka hadli doonaa taariikhda iskuulka wuxuu soo jiray ilaa dhowr sannadood wuxuu si toos ah u hirgalay sanadkii 2022 bishii 8 Agoosta ayuu hirgalay taariikhdiisa laguma soo sheekay karo wuxuu ka soo bilowday qayb private ah waliba khamiis iyo jimco ah oo ardayda lagu soo barbaariyay ilaa arday dhowr ah oo hadda iskuulka dhigtaana arday qaarne ay iskuulada kaleeto ee gobolka Banaadir ay qayb kamid ay ka dhigtaan qaybaha iskuulka uu leeyahayna waxaa kamid ah qayb macad ah sidoo kaleeta qayb private ah sidoo kaleeta qayb oo habeenkii looga talagalay in lagu soo dhiso ama qayb private ahaan ah sidoo kaleeta waxay iskuulka cigaal ardayda ugu sii deeqdaa qaybta khamiis iyo jimcada in ardaydii hore u dhiganaysay ay ugu celiyaan casharadii ay shanta maalin dhiganayeen qaybo ka mid ah say aqoontooda kor ugu sii qaadaan sidoo kaleeta waxay la sii xoojiyeen habeenkii oo kaleeta in arday qaar ka mid ah xaafadaha ka dhow ay dhigtaan ama ay u xoojiyaan waxbarashadoodii kor u qaadaan qaybaha ka mid ah sida ustaad ka dhawaajiyay iskuulada inta badan ay ka liitaan waa maadada carabiga iyo maadada Englishka iyo xisaabta tarbiyada oo raacsan tahay qaybta carabiga qaabilsan intaas waxaan sameeynaa marka ardayda in aan dib ugu soo celino khamiis iyo jimcihii ardayda jaanis kale soo kaleeta inuu faa'iideyno sidoo kaleeta habeenkii oo faa'iideyno sidoo kaleeta wuxuu leeyahay qayb bareefad ah qaybta macadka shanta maalin shaqeynaysa bareefad shanta maalin shaqeynaayo oo ardayda lagu soo koriyo ama lagu soo barbaariya ayuu leeyahay waxaa kaloo uga hadli doonaa waxaa jirta tacaamulka waalidka iyo macallimiinta ama maamulka waalidiinta qaar ardaydooda kama warqabaano way soo diraan waxay u soo dhiibaan buugga oo kaliya waxay soo aadaan iskuulka
kama warqabaano xilliga ay imaadaan xilliga iskuulka ka soo baxaano war kama hayaano waalidiin qaar laga yaabay xilligii iskuulka ardayga ay ka diiwaangelinayeen in ugu dambeysay dib dambana u soo wactamin waalidiinta marka waxa ugu baahanahay in ay xiriir la sameeyaan maamulka iyo macallimiinta iskuulka in xiriir la sameeyaan sida ubadka Soomaaliyeed ama ubadkooda aan kor ugu qaadna aqoontooda ayaan ka codsanaynaa waa iska warqabka aad u muhiim u yahay sababtoo ah waalidka waxa looga baahan yahay ardayga markuu soo diraayo in iskuulka aaday iyo inuu banaanka ka soo laabtay ama wadada ka soo laabtay lama kala garanayo wuxuu ku dhigi karaa iskuula ka imaaday laga yaabay inuu ka imaan dhowr maalin way dhacday arday oo sameeyeen maalin maqnaayeen maalinta ka dambeystay haddii aan wareystay ama qabsaday waxay ku leeyihiin xaafadda joogay waa xanuunsanay waalidka dib markii laga wacay waxay ku leeyihiin waa soo diray shalay waa iskuul oo jiray marka iska warqabku muhiim waaye waalidka markasta iskuulka waa inuu soo booqdaa ardayga heerkiisa waxbarashada halkoo maraa markas hadduu waalidka oo naga warqabi waayo ardayda aniga kaligan wax ma bari karna waa muhiim in aan ka helnaa gacan ama garab weyn waalidka xaggiisa waa inaan ka helnaa lagama maarmaan sidoo kaleeta ugu dambeyn warka qodobka ugu dambeeya haddii aan kusoo gabagabeeyo furitaanka iskuulka insha allahu tacaala sana dugsiyeedka uu dhammaaday waxaana si toos nooga bilaabo doonaa daraasaadkii si toos loogu shaqay jiray maalinta sabtiga oo biri taariikhda ku astaysan tahay 5 Agoosta insha allahu tacaala si toos ayay waxbarashadeenii nooga bilaabo doontaa waalidiinta nala shaqaysa marka waxa ugu baahanahay waalidiinta inay nala shaqayso ardayda si wax badan ay u bartaan waalidka iyo macalinka markay isku xiriireen ardayda xitaa waxay dareemayaan in iska warqab oo qaba waalidkii iyo macalinka markay iska warqabaan waalidku ardayga wuxuu dareemaa wuxuu isleeyahay waalidkii macalinkii oo uu kugu dirin wax badan oo ziyaadina haddii laakiin aniga kaligeena ku ekaano waxa maanta aan barnay laga yaabay xaafadda markoo taga inuu magaalkiisa ka sii gala ama waxyaabo kale tahay dhowr arday waxaa jirta oo markii habeenkii maalintii oo kale waxa loo diraa exercise ama leeliya loo diraa oo xaafadda in looga soo shaqeeyo looga talagalay birri markay imaadaana banaanka lagu heestaa macalina ku dhagan maxaa loo soo bixiyay ama maxaa looga dhigay markaa dhahayd ninkan shaqo loo diray shaqadii soo qaban waayay waxa loo baahan marka shaqadaas waalidka inuu daba joogo oo shaqada qabadha maxaa lagu soo diray maanta maxaa shaqo lagu soo diray arday qaar laga yaabay waxay dhahayaan waxba noolama soo dirin waana dhacday markii dhowr arday banaanka lagu qabsaday aan arkay oo dib u daba baaray ama baaray waxa ii soo baxday inay ardayda xitaa ay dhahaano wax noolama soo dirin maalintii banaanka lagu heesanayo marka insha Allah taala aan iska warqabna waalidiinta si aan ardayda wax badan aan ugu bedelno insha Allah taala waxaan halkan ka guddoonsi doonaa ardaydii kaalmaha koowaad galaasmanka u gashay iyo sidoo kale waxa laga guddoonsi doonaa ardaydii tartan aqooneedka kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad u soo gashay insha Allah taala hadalkayda halkaas ayaan ku soo gunaanadi doonaa